السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كل وعن وهاجسن ميل والباد كلا جوكتان برتن وبرتي ساحبكين وبرتا جامايكا وفيشيال دوانا داوديال وانسويني ووالا كالمغنا هادو الله كويد ما هيو والسوي اد بالسكو هيو والسكا كالمشغولي marka daawadayaal soo dhawaada meel baa joogtaan daawadayaasha caalamka igala jaan qaadaya caasimadda hooyo magaalada muqdisho kuwa gobolada kuwa qaaradda yurub kuwa dhankaas kale ee Asia iyo meelahaas kale kala joogay Afrika dhamaantii soo dhawaada bartaan waa Jamaica official oo barta saaxiibkiin waa barta aan ku kulano oo barta aan ku kala xoo qaadano dhawaanahan aad bal isku waayo bar kale ayaa idiin sameeyay hasaate daawadayaasha ayaa yiri waa hadda Jamaica barti aan kaaga barano Jamaica official ahayd bal taas waan u xisnay ku soo noqo daawadayaal codkiina waa idin aqbalay waan soo noqday hadduu ay booriral ka noqdana bartaan si joogta sidaad kaga barateen ayaa maalin walba halkaan idinkugu soo fadhiisan doonaa saate dhiirigelintiina ayaa muhiim ah subscribe-ki waa muhiim kaas hadii la waayana aniguna ima arkaysaan oo dhiirigelinta ka ayaa qayb ka like-tana waa iska muhiim commentina kaasna waa wixii aragtidaada ayaad halkaan igula soo wadaagi doontaa daawade wixii markaas maskaxda ka dhex guuxaya wixii ay idihaysid bartaan igu rab aad baad u maasan tahay gambalaalkan waa muhiim oo ha ku furnaado si mar walba muuqaalkan usoo dhigo daawade qofka ugu horeeya ee daawada aad noqotid maasan waagaag daawadayaal maanta inta muuqaalkan u gudagelin waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo saaxiibkay Maahir oo ah cameraman cajiib oo ninkaas waa nin cajiib oo muuqaalada sidoo u sameynayo aad yaabi doontaan Jamaica officialna waa saaxiibka mar walba muuqaalada caalamigana gacan weyn ka geysto horteeda ayuu taagan yahay waa kaas asagana halkaas buu shaqo ka wada waan u mahadcelinayaa saaxiibkay daawadayaal waagaag maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu ay booriral ka noqdo waxaan ka hadli doonaa youtube-yadii Soomaalida ee geyga Soomaaliyeed gaar ahaan youtube-yada magaalada Muqdisho waxoogaa wax xarga goosteen aad bay xarga goosteen waxaad moodaa in youtube-yadii ay markaan daawaday ninba nin sida uu eeganayo maalin walbana ee daawadayaal sida wada ogtiinba waxyaabo kala duwan ayuu nin walba intuu soo fadhiisto bartiisa ka baahiyaa marka xoogaa waxaad moodaa in ay xarga goosigaas noocaasa ay ka babadiyeen dhawaanahan sida wada arkayseen ninkii durdur ah Xasan Toob ah dhankii kala jamuun ah dhankii kala fartuun balbalaarka ahayd dhankii kala dugaal xoogaa waxaad moodaa in conflictiga soo noqday haasaatay dib u heshiisiin ayaa la sameeyay haddana mar kale dib u heshiisiintii waa burburtay oo xoogaa waxaad moodaa jamuuni iyo Xasan inay mar kale haddana isku soo noqdeen oo arrintii gurigii waxyaabo la mid ah marka daawadayaal waxaan doonaynaa aniga iyo youtube-yada kale waxaad moodaa xoogaa inay ugu aragtiyiin oo Jamaica officialna uu taagan yahay youtube-ka kaliya u taagan inuu yahay kala dhaxaadinta iyo waxyaabaha markaas jira ee xaqiiqada inuu soo bandhigo marka waxaan rabaa inaan halkaan fariin ugu diro daawade dhammaan youtube-yada magaalada Muqdisho oo bartaan dabcan ay ayaguna sida aniga dadka aan halkaan wax ugu gudbiyo iyagana ugu gudbiyaan ayaan doonayaa halkaan fariin ugu diro number 1 waxaan soo qabanayaa durdur ninka Xasan Toob oo dabcan aad kaga barateen oo halkaas soo fadhiisto waxyaabo uu halkaas ka soo gudbiyo uu dadaalaya uu fiican yahay keep going laakiin Xasan waxoogaa waxaad moodaa mar walba horo socotid inaad soo noqonayso si soconaysa waa soo noqonaysa marka xoogaa waxaad moodaa adiguna inaad ka babadinaysid waa fiican tahay samafal ayaa sameysay dhalinyaro oo xoogaa aad liita ayaa soo gacan qabataa saatee arrintii ka babadin ayay noqotay marka waad fiican tahay laakiin xoogaa quite isdaji marka qaabka u shaqeynaysin dad badan ayaa xoogaa gacan ku taagay oo xoogaa waa laga fiican yahay marka halkan ayaan doonaya inaan fariinka u gudbiyo sidoo kalena waxaan halkan doonaya inaan fariinka u gudbiyo jamuuni farxasidii isagana dabcan uu dadaalayaa his legend laakiin xoogaa waxaad moodaa isagana somehow mararka qaar waxaad moodaa markuu yani hadda tusaalatii ugu dambeysay dib u heshiisiinta oo kale inuu markale soo noqday ma fiicneen odayga xoogaa comeback ayuu soo sameeyey wuu fiican yahay waxyaabo iyuu ufinayaa laakiin xoogaa waa ka babadin looma baahna marka jamuuni weliba qaabkii ugu dambeysay oo waxyaabo badan u faahfaagtay dabcan aniga shakhsiyan waa lagala habboonaa sidaa sheegtana waxaa tahay booliska youtube-ka ayaa tahay
laakiin sidii ugu dambeysay aa sameysay ma ahayn mid aniga ii cajibisay marka xoogaa qaabka u shaqaynaysidna kolley waa qaab adiga kuu diyaarsan ama kuu jadwalaysan laakiin waxyaabaha qaar adigana iftiiminta badan ka daa waa talo oo dhankan Jamaica Official aan kaaga soo gudbinayo waxaan doonayaa YouTube-ka saddexaad inaan soo qabto oo ah asagana midka gabadha ay leedahay oo Fartuun ah Fartuun iyadana way fiican tahay way dadaalaysaa laakiin iyadana qaabkii ugu dambeysay wax u sameynaysa iyadana waa lagala haboonaa xoogaa iyadana waxaad moodaa in qaabka iyadana iftiiminayso in lagala haboon yahay oonan munaasib ahayn marka YouTube-ka afraad aan soo qabanayo wuxuu yahay kan dugaal oo asagana dabcan cabasho badan laga qabay xasan iyo asagana dabcan ay isku dhaceen hasaatee marka dambe conflictiga la xaliyey asagana xoogaa marka dambe wuu qaatay walow marka hore xoogaa isku dhacaasna meel walba uu gaaray laakiin marka dambe wuu qaatay laakiin halkan asaga waxaan rabaa inaan kaga gudbiyo baaqa inuu yacni arrin noocaasa mar kale ayna soo noqon marka guudaan afartaas YouTube ayaan doonaya inaan soo qaato waan dareemi karayaa qaabkan u sharaxay daawadayaal inay la dareemaysaan in waxa la xaleyna waa wax ugu weyn qofka aadanaha u noolyahay maadaama isku dhacyadu haddii soo noqdaan aan la xalinna waa sababta caalamka loo sameeyey boolis hadduuna boolis jiri lahayn tuugu wuxuu rabaa ayuu sameyn lahaa traffic hadduu jiri lahayna shilalka way badan lahayn hadduu Jamaica Official jiri lahayna xal badan lama gaarin marka waan dareemi karayaa ama waa qiyaasi karayaaba qaabka aan wax u sawirayo adiga daawanaysa Jamaica Official ba inaad la dareemaysid isla markaasna aad igula jaan qaadaysid fariimaha aan gudbinayo marka halkaas kaga gudba marka afartaas YouTube aan soo qaatay waxaan rabaa marka baaq caalami ah inaan jiro YouTube-yadu dabcan qaabka loo jadwalay ama loo diyaariyey adduunka waxaa jira systemka hadduunan lahayn policy ama wax markaas u degsan oon lahayn xoogaa dhanka borderka ama xadka ayuu ku gudbaya YouTube-yada ay ka howlgala geyga Soomaaliyeed daawada markaad fiirisid xoogaa waxaad moodaa sida reactionada loo sameynayo sida la isku dabagalayo sida wax loo iftiiminayo ama sida mar walba ay iskugu dhadhacayaanba dhammaantood waxaad moodaa in yacni ay ka badan yihiin marka falaar ayaa nuu gudan oo waxaad moodaa in si guudba looga cawdo la yiraahdo YouTube-yada geyga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka howlgala nidaam ahaan ma degsana marka fariintaas maadaama imaanayso Jamaica Officialna way saameynaysaa weli bartaan maysan dhicin horay way jirtay inaan dad iskugu dhacnay tusaale sida Jamuuni oo kale reaction inta ka baxsho asagna iga soo baxshay way jirtay in yacni qaab noocaas kale iyo waxyaabo kale iskugu dhacna way jireen laakiin xoogaa waxaa moodaa marka the only one inaan ahay YouTube-ka kaliya marka laga soo tago in Jamuuni mar aan isku dhacno reaction aan iska bixinayo xoogaa isku leey way jirtay laakiin wixii ka dambeeyey isku dhac kale oo aniga iyo YouTube kale u dhaxeeyay maysan jirin marka waxaan doonaynaa YouTube-yada kale caadiga internationalka caalamka si u shaqeeyaan inaan u shaqeyno ayaan doonaynaa in reaction la bixiyo si qurxoon good in yacni lasoo fadhiisto wax kale laga hadlo that's good in wax kale la bidhaamiyo that's right laakiin ma habboona mana dabcan u maryaaqayo in yacni maalin walbo wax markaas taagan ee daily issue-ga in la qodqodo oo qofka xataa waxyaaba waxaa jiraan issue-ga markuu sii ballaarto personal average in la galo qofka shakhsiyan that's not good caalamkan marka la fiirsho policy-ga ama waxyaaba u degsanna ma fiicin xagga bini'aadanimo iyo xag culture ama dhaqan ahaan that's not good marka all in all waxaan rabaa YouTube-yada aan soo qaatay iyaga ayaa isfahmay oo heshiiyey haddaan qaldanayn way baxeen meelay tageen waa la cabitaaneeyey waa la shaahiyey waa la soo hor fadhiistay waraayey maxaa iga tabanaysaa good waa la wada hadlay dan waa lagu kala tegay mar kale ayaa la dana la isku soo noqday marka waxa aan ugu celcelinaya wax kale ma ahan waxaan rabnaa inay ila fahantaan daawade waxa keenayo macnaha I'm attaching the real bonds waxaan rabaa waan doonay waxay weeyaan waa maxay mar kale in khilaafka haddana uu soo noqdo marka haddii la heshiiyo waa la heshiiyo in las gacan qaado hab la siiyo oo apology la bixiyo that's right laakiin in marka la soo noqdo waa bountiga marka taagan waa marka xoogaa marka
qof bay wax ka dhex guuxaysaa qof baa wax tabanaya marka in wixii la xalay ayaa la doonaya marka waxaan rabnaa magaca youtube-ka maadaama aad xambaarsan tihiin geyga Soomaali gaaran magaalada Muqdisho aan ka wada howlgalno in aan ilaalino magaca guud ayaa la doonayaa oo dhammaanteen hal meel aan ka wada markii si loo fiirsho hal meel aan ka wada diyaaradda ka wada kacno marka baqaas oo dareemi karaya inaad ila fahanteen oo dhammaantiin si siman aad ila qaadanaysaan barta Jamaica officialna waa bar mar walba u taagan inay isku keento wixii markaas wax kala tabanaya wixii markaas conflicti waxyaabaha dijiriyana waa bar u taagan inay xaliso mana doonayno in youtube-yada kale marka la fiirsho geyga Soomaaliya ka howlgala in la yiraahdo dhammaantood waa rag noocaas oo aniga xataa bartan Jamaica official ay sameeysan ma doonayo marka dib u noqono back to 10 year markaan fiirino youtube-yada caalamka tusaale kuwa Canada ka howlgala ama kuwa United States of America ka howlgala ama kuwa Australia ka howlgala markaan fiirino ama kuwa East Africa oo kale ka howlgala markaan fiirino iyo markaan isku soo qaadino kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho adi naftiga way ila dareemi karaysaa in aynan sinayn isku miisaan ahayn waa dareemi karaysaa marka all in all ma doonayno in marka arrin noocaas mar kale gacanta lagu soo taago yiraahdo youtube-yada magaalada Muqdisho dhammaantood waa hal doon ayay wada saareen oo barta Jamaica official saameyntaas soo gaarto arowana that marka in arrintaas ila fahanteen waa doonayaa in la xalino